aabe gabadhiisa ka dhalay 7 caruur ah. Joseph Varietis waa aabaha dhalay gabadha lagu magacaabo Elizabeth Varietis, iyadoo oo 12 sano jir ah ayuu aad u aflagaadeyn jiray, bahdili jiray, iskoolkana xoog ayuu ku geyn jiray ilaa ay ka carartay qoyskeeda ayna nacday waxayna aaday saaxiibteed. familka ayaa qoray warqad ah inay waayeen gabadhooda lana garanaynin meel ay jaan iyo cirib dhigtay. kadib booliiska ayaa raadiyay soona helay guriga ayayna ku soo celiyeen. muddo kadib iyadoo oo 18 sano jir ah sanadii 1984 aabaheed Joseph ayaa mara miyir daboosho ah ama daroogaysan afka iyo sanka uga qabtay markii ay sooxdana guriga dhulka hoostiisa ku yaala oo xabsi ah ayuu geeyay. halkaas buuna ku xoogi jiray maalintii 3 jeer. ugu dambeyntiina cunugii ugu horeeyay ay dhashay sanadii 1988 iyadoo aan wax daryeel helin ama xanuun baabi'iye ah. mana jirto qof caawiya. wiilkii ay dhashay waxa ay u bixisay Kristen iyadoo oo bartay wax kasta qorista, macallimadna u noqotay xabsiga ku yaala guriga hoostiisa. arinta yaab kale ayaa ah in xaaska Joseph aysan waxba ka ogeyn musiibada uu ku kacay ninkeeda iyo gabadheeda silaca uu baday. gabadhii Elizabeth ahayd waxa ay sidaasi ku dhashay 7 caruur ah, waxayna kala ahaayeen magacyadooda Kristen oo curadka ah, Liza, Steven, Michelle, Monica, Alexander iyo Vilakis oo dhammaantood ku dhashay xabsi hoose ee ku yaala guriga uu degan yahay hoostiisa. Joseph gabadhiisa wiilka ay u dhashay aabaheed ee curadka ah ee Kristen ayaa aad u xanuunsaday, gaarayna heer uu miir daboolmo. kadib ayay codsatay inuu u baahan yahay badbaadin. markaas ayuu ka furay albaabka shamintada ahaa. 24 sano kadib Elizabeth iyo wiilkeeda curadka ah ayaana arkay qoraxda iyo hawada wanaagsan markii ugu horeysay. isbitaal ayay ula carartay. booliiska ayaa ka shakiyay xaaladda wiilkan halista ahayd iyo hooyada nafsiyan aadka u shoogsan. diiwaanka caafimaadka ayaa laga baaray qoyskeeda mise waxba ma lahan. su'aalo badan iyo tixraac waxa ay sheegtay inay doonayso badbaadin. wixii oo dhanna waa ay sheegtay ee iyada ku dhacay qaracan iyo shoog ayayna ku noqotay kalkaaliyaasha caafimaadka iyo dawladeedaba. laamaha ammaanka ayaa heegan la geliyay waxaana weerar lagu qaaday ninkii bahaloobay ee ilmihiisa baday taariikh xumada. Joseph ayaana lagu xukumay cimrigaha ku furto ama xabsi daa'in, wuxuuna marar badan isku dayay inuu isu dilo xabsiga dhexdiisa ee ku yaala dalka Austria waana ay u suuroobi weysay. like muuqaalka sidoo kale share dheh ama others kana taabo. mahadsanid.